youtube-keena waxaan kusoo gudbinaa wax kasta oo bulshada muhiim u ah diinteedii iyo adduunyadeedaba. caawa waxaan jeclaystay inaan kusoo gudbiyo xadiid nebigeena calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo duco ah. ducada runtii waa duco muhiim ah. qof kasta gabar iyo wiilba xilli kasta ku weyn ku yar ku tijaaro qaba ku dhaqaalo qaba ku faqiira cid walba ayuu u fiican yahay. xadiidkaasi waxa weeyaan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray maqribkii ama salaada subax xilliyadaasa u badnayd, xilli kastana waa la akhrisan karaa. nabigeenu wuxuu dhihi jiray bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa'i wa huwa asamiicu alcaliim. ducadaas aad u jeedaan nabigeennu markuu akhristo sala allahu calayhi wasalam ummaddiisana wuxuu ku tarbiyeeyey inay akhristaan. nebigeennu wuxuu ku sheegay balaayo kasta inuu ilaahay kaaga difaacayo. wax kastoo musiibo ah oo laga baqo oo qofka bini aadamkaa ku dhacda ilaahay wuxuu kaga difaacaa subxaanahu wa tacaala. ducadaa qofku inuu akhristo waa duco latiifa oo fudud, qof walbana u fudud inuu xifdiyo. gabar iyo wiilba, oday iyo da'yarba, qof walba waxaa u dhib yar inuu xifdiyo. ducadaasi waxa weeye ducada aan soo sheegnay bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wa huwa asamiicu alcaliim. bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wa huwa asamiicu alcaliim. ducada nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxay ka mid tahay ducooyinka aadka u fara badan ee nebiga een la soo koobi karin ee xilli kasta iyo goob kasta lagu akhristo. ducooyinka ugu saamaynta badan ama ugu ta'hiirka fara badan ayay ka mid tahay. wax kasta ilaahay baa kaaga difaacaya oo kaaga magangelinaya haddaad ducada akhriso oo laasimto. waxaadna akhrisanaysaa xilliga salaada subax ee soomaalidu u yaqaanaan cirguduudada 3 jeer ayaad akhrisanaysaa. waxaa kalood akhrisanaysaa xilliga maqribka oo ayadana ay cirguduudada u yaqaanaan soomaalidu 3 jeer ayaad akhrisanaysaa. maalkaagu ilaahay kaga difaacayaa balaayo dhammaanteed. naftaada ayuu ilaahay kaga difaacayaa balaayo dhammaanteed. dhinac walba ehelkaaga ayuu ilaahay ku difaacayaa. ducadaa akhriso. haddaad horey u akhrisan jirtay ku dadaal oo sii badi ducada inaad laasimto. haddii aadan akhrisan jirinna laga bilaabo maanta laasim oo xifdi. ajarna waad ka heli oo ilaahay ajar ayuu kugu siinayaa subxaanahu wa tacaala. kelimo kasta oo iyo xaraf kasta oo ka mid a ducada ajar iyuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu siinayaa. 2 ilaahay wuu kugu magangelinayaa naftaada iyo xoolahaaga iyo ahalkaagaba ilaahay wuu kugu magangelinayaa. wuxuu ilaahay kaaga magangelinayaa cudurrada xunxun ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala kaaga magangelinayaa. wuxuu ilaahay kaaga magangelinayaa xoolahaaga in la dhaco. wuxuu ilaahay kaaga magangelinayaa khasaaro inuu kugu dhaco. wuxuu ilaahay kaaga magangelinayaa cudurrada xunxun inay kugu dhacaan, inuu kugu dhaco aidis, inuu kugu dhaco dhiikar, inuu kugu dhaco sonkor. xanuun kasta oo xun buu ilaahay kaaga magangelinayaa subxaanahu wa tacaala. ducada adigu laasim. haddaad laasimto bal fiiri, haddaad aroortii akhrisato ama aad akhrisato salaada subax aad akhrisato, waxaad fiirisaa maalinka baltijaabi inay balaayo kugu dhacday iyo inay musiiba xoolahaagii, naftaadii, adduunyadaadii, ehelkaagii, qaraabadaadii soo gaadhay. xaqiiqa waxa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kaaga magangelinayo. nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa qof runta sheega, weligii been ma sheegin nebigeennu sala allahu calayhi wasalam. waxa uu ku hadlayaana waxyi ilaahay u sheegay weeye, wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. nebigeennu sidiisaba hawadiisa iyo naftiisu waxay jeceshahay kama una hadli jirin. wuxuu ka hadli jiray nebigeennu sala allahu calayhi wasalam wixii ilaahay uu yidhi sheeg ee ummadda u sheeg lagu yidhi unbuu ka hadli jiray nebigeennu sala allahu calayhi wasalam. haddaba qofka mu'minka, wiilka mu'minka, gabadha mu'minka waxaa looga baahan yahay isagoo ictiqaadinaya oo qalbigiisa gelinaya nebigeenna hadalkiisu inuu yahay hadal xaq ah, hadal waxyi ah inuu yahay, isagoo ictiqaadinaya inuu dikriga iyo adkaarta nebi maxamed ka soo aroortay ee nebi maxamed uu samayn jiray inaynu mar walba samayno ayaa la inaga rabaa. si ay u noqoto dayashada aan nebi maxamed ku dayanayno iyo sheegashada aan sheeganayna nebi maxamed inaan ummaddiisii nahay, inaan nahay atbaacdiisii, inaan nahay kuwii raacsanaa nebi maxamed. si ay arrintaasi u noqoto arrin dhab ah oo sax ah oo run ah oynu ka run sheegayno, waxaa lagaa rabaa inaad dhaqankii nebi maxamed, ficilkii nebi maxamed, qowlkii nebi maxamed wuxuu laasimi jiray inaad laasimto. low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicun.
ninkaa shaacirkii wuxuu yidhi low kaana xubuka saadiqan run hadduu yahay xubbiga iyo jacaylka aad sheeganayso matalan nebi maxamed baad jeceshahay waxaad leedahay nebi maxamed waan jecelahay xubbigaaga iyo jacaylka nebi maxamed aad u qabto hadduu yahay run la atactahu nebi maxamed waad yeeli lahayd oo maxaad ku yeeli lahayd wuxuu kuu sheegay dikriguu kuu sheegay ducadu akhriso ku yidhi wuxuu samee ku yidhi ayaad qaadan lahayd nebi maxamed oo sida nebi maxamed wuxuu sameeyey ayaad samayn lahayd maxaa yeelay ina almuxiba liman yuxibu mutiicun qofka uu jecel yahay wuu yeelaa warkiisa iyo hadalkiisa iyo waxa uga yimaada wuu yeelaa haddaa qofka matalan ka soo qaad qof waliba ama adduunyaha waxa uga yimaada ama aakhira ha noqday wax kasta oo uga yimaada qofka uu jecel yahay wuu yeelaa nebi maxamed haddaad rumaysan tahay haddaad jeceshahay nebi maxamed hadduu nebigaagii yahay ducada uu ku sheegay waa ducooyin aan la soo koobi karin runtii xaqiiqatan ducooyinka nebigeennu sala allahu calayhi wasalam markaad akhriso ajar baad ku heli ilaahayna wuxuu kaaga badbaadinayaa shuruuru dunya ayuu kaaga badbaadinayaa sharka adduunyada iyo masaa'ibta adduunyada ayuuna kaaga badbaadinayaa waa kelimo aad u yar waa kelimo aad xifdin karto oo ajar iyo miisaanka xasanaadka kuu fuulaysa kadibna ilaahay kaaga badbaadinayo mashaakisha adduunyada ka dhacaysa waad og tahay maxaa kugu dhaca jidhkaaga xanuun baa ku dhaca xanuunno masaa'ib fara badan baa iska jirta oo wareegto oo kugu dhacda xoolahaagiibaad khasaartaa businesskaaga iyo ganacsigaagiibaad khasaartaa wax walba oo samaynaysa dhibaataa kaa soo gaadha maxaad ku diida inaad nebi maxamed warkiisa yeesho kadibna ganacsiga aad samaynayso aad ku guulaysato noloshaada nolol barwaaqa ilaahay kaaga dhigo wax yari kugu filnaado maaha inay wax badan aad hesho oo waxa badani uu kugu filnaado waxaa la rabaa qofka ducaysan qofka nebi maxamed dikrigiisa laazima wax yar buu ilaahay u barakeeyaa oo laga yaabo qof kale inayna waxba u tarin buu ilaahay u barakeeyaa lianna qofka mu'minka ah sidiisaba haddii uu khayr la yimaado khayrkaasi aakhar iyo adduunba way kaga filnaanaysaa u fiirso waxaad arkaysaa nin dhaqaalo badan haysta laakiin ilaahay diintiisa aan laazimin ilaahay diintiisa aan rumaysnayn nebi maxamed warkiisa aan rumaysnayn wixii barakada laga qaaday baad arkaysaa iyo qof wax yar haysta barakaysan guri qurux badan ku jira dhar qurux badan xidhan si qurux badan u labisan si qurux badan maaragtay u nool reerkiisiiyo isaga iyo faamiligiisi iyo dadkiisii ku ka lacag badan oo noloshiisi aad u khariman tahay mar walba dayn isii buu ku leeyahay waxbuu raadinayaa aduu mar walba wax ku weydiisanayaa adigana waxaa laga yaabaa runtii xaqiiqatan mushaharka ku soo gala iyo biilka ku soo gala iyo lacagta ku soo gasha iyo waxa kugu filan inay wax aad u yar u yihiin kuguna filnaado kan oo kaa lacag badan kaa mushahar badan kaa dhaqaala badanna waxba maanta adiga uu wax ku moodaya xataa mararka qaarkood maxaa kalifa inta badan waxaa kalifta inay nebi maxamed dhaqankiisa ayaa lagu kala tegey nebi maxamed haddaad yeesho runtii xaqiiqatan wax walba waad ka kaaftoomi bini aadanka waad ka kaaftoomi waxaagu ilaahay kugu filayseen waxaagaa wax kuu taraya meeqa ka aqoon badan baa jirta oo adduunkan yaacaysa oo maraysa laakiin aan wax ku filan haysanin waxba aan haysanin maantao dhan wax raadinaysa maanta kaa dadaal badan laakiin aan waxba haysanin marka walaal waxaan ku leeyahay walaashayda muslimka walaalkayga muslimka waxaan idin leeyahay ku dadaala ducooyinka nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oon maanta ka soo qaadanay ducada nebigeennu uu yidhi musiibooyinka dhammaantii ilaahay wuu kaaga difaacayaa haddii aad ducadan la timaado oo ah bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi alsamaa wa huwa asamiicu alcaliim akhriso salaada subax akhriso salaada maqrib iyo xilli kasta gurigaaga adoo jooga waddada adoo maraya busineskaaga adoo dhex jooga dukaankaaga adoo dhex jooga shaqadaada adoo ku dhex jira mar walba akhriso si ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu badbaadiyo ajarna aad u hesho ajar iyo xasanaad aad u hesho waxaan idinku gunaanadayaa qiso ducada xidhiir la leh qisadaasi waxay tahay maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin naafo a noqday markii dambe oo naafo ah oo sheekh ahaa ayaa wuxuu sheegay ducadan buu xertiisii u sheegay iyo dadkii kutubta ka qaadanaysay ee cilmiga ka qaadanayey wuxuu yidhi haddaad akhrisato ducada nebigeenna ka sugnaatay nebigeenna wuxuu yidhi wax musiibo oo qofkaa ku dhacaysa ma jiro sheekhaana hadda kahor lugtan iyo naafada meesha uu ka yahay naafo muuna ka ahayn ardaygiisi qalbigiisa waxaa ku soo dhacay sheekhan muxuu u akhrisan waayey haddayse hadalkaasi uu run yahay oo ducadani sax tahay maxaa musiibadani ugu dhacday ile awal muuna qabin musiibadan iyo dhibaatadan iyo lugla'aantan iyo naafadan muuna qabine sheekhii wuxuu yidhi maxaad hadalkaas ama niyadaada waxa u soo gelinaysaa sheekhu dabcan niyada muuna taalacanaynin laakiin wuu ka dareemay ardaygiisi wejigiisa ayuu ka dareemay markaasuu wuxuu yidhi habeenkii aan lugta beelayey ee xanuunkani faaligga igu dhacayay ama lugqalalka ama dhinac qalalku igu dhacayay
habeenka ilaahay iima solansiinin inaan ducadan akhristo waan iloobay si sunnada ilaahay ee ilaahay iigu talagalay iyo qadarkii ilaahay iigu talagalay ilaahay iigu fuliyo subxaanahu wa tacaala habeenkaa waan iloobay ducadaana maana akhrisanin amaa intii noloshayda kale weligay ducadan kama tegin weligayna dhibaata iima soo gaarin buu yidhi xaqiiqatan aniga lafteeda idinla hadlaya waan tijaabiyey ducadan oo xaqiiqatan markaan akhristo balaayo lama kulmo maalin kasta oon culays dareemo ama aan waxyaaba naftayda ka nixiya aan arko waa maalmaha aan ka tago oona ducadan akhrina aniga idinla hadlayo weeye marka ducada aan laazimno bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi asamaa wa huwa asamiicu alcaliim maanta intaasaan ku joojinayaa hadda kadibna ducooyinkani way inoo socon doonaan oo maalinba nebigeenna duco ka sugnaatay ayaan soo qaadan doonaa